بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل الله فلا هادي له. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Bio Academy. halkaad nagala socotaan waa barta aynu ku leenahay Facebook ee Bio Academy, YouTube channelkeena Bio Academy. kusoo dhawaada mar kale iyo mar kale waxaynu ku guda jirnaa duubista casharradeena maadooyinka scientific ahaa Bio Academy si ay u gaarto dhammaan ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda dugsiga sare. walaal ka qayb qaado adna share gare, YouTube-ka like sar, subscribe gare, Facebook-ana sidoo kale. maanta waa maalin kale iyo maadadeena xisaabta fasalka 12aad ee dugsiga sare. waxaa xusid mudan in maadooyinka fasalada kale ee jidka ku soo wada jiraan guud ahaan form 1, form 2 iyo form 3 insha Allah ayna idin soo gaari doonaan waqti dhow gudihiin insha Allah. cashirkeena labaad ee maadada xisaabta ayaynu mareynay waa isla anigii oo ah Axmed Muumin Cali. chapterkeenu waa chapterkii oo trigonometry ah. chapterkeena haddaan guda galno sectionka koowaad ee buugga anaga waxaa ka hormarinay qayb yar introduction ah. waxa ugu horeeya waxa loo yaqaan compound angle formula, jidka xagle isa saaran. jidka loo yaqaan compound angle formula, jidka xagle isa saaran. compound angle waxa la is algebraic sum of difference oo wada algebreed ama faraq algebreed of two or more angles, laba xagal iyo ka badan la isu geenayo ama la kala jarayo. waxaan isticmaalaynaa trigonometric identities, midaalada trigonometriga to compound angles si xagla aan isugu geeno. xagla si aan isugu geeno waxaan isticmaali doonaa midaalada trigonometriga yaan isticmaali doonaa through trigonometric function kuwa oo la xiriira fansaarada trigonometriga. the sum and difference wadarta iyo faraqa oo functions ee fansaarada in trigonometriga ah can be solved waxaa lagu xallin karaa using iyadoo la isticmaalayo the compound angle formula, jidka xagla isa saaran iyadoo la isticmaalayo ayaa la xallin karaa. Here we shall deal. hadda waxaan la dhaqmi doonaa with functions fansaarada oo ah a plus b iyo a minus b. a plus b waa sum, a minus b na waa difference oo wadar iyo faraq. the formula for trigonometric ratios, jidka marka saamiyada trigonometriga markii la joogo compound angles xagla isa saaran as follows waa sidaan soo socoto. cos iyo sin iyo tan saddexdaas waxay yihiin base. inta kale waxa dhahnay base ma aha, laakiin saddexdana waxay yihiin sal. kuwa kale waxay ku imaan doonaan reciprocal waxa loo yaqaan rogaal ku imaan doonaan. maadaama ay saddexdan base yihiin waxaan xoogga saari doonaa marka saddexdan waxaan marsiin doonaa wax loo yaqaan compound angle formula, jidka xagla isa saaran marsiin doonaa cos iyo sin iyo tan. maanta duu Allah insha Allah taala cashirkeena guud ahaan wuxuu la xiriiraa cos ama cosine waxa loo yaqaan. cos labadii qaab oo marsiinana sum iyo difference. cos a plus b waxaa loo furfuraa cos. hadaa furfuri rabto si fudud waxaa sameysaa cos leh ha ku dambeeyaan xaglaha calaamadan gudaha ku jirto balaaska lidkeeda keeno waa minus sin dhaho respectively si ay u kala horeeyaan a iyo b kala hormari marka a b waxaa ku soo bixi doonta markaas cos a cos b minus sin a sin b aye cos a minus b fiir marka isla jidkii hadda mar calaamadan lidkeeda ka dhig bis cos sin calaamadeeda gudaha maxaa ku jira minus, maxaa banaanka keenayna plus. a iyo b na respectively say u kala horeeyaan a horeysa b a b waxay noqotay markaas cos a minus b waxay la mid tahay cos a cos b plus sin a sin b. qaybtan hore ayaan ku shaqeyn doonaa hadduu alla idmo insha Allah tacaala markaan joogno cosine, balse sin iyo tan waxaan ku shaqeyn doonaa qaybaha dambe ee cashirka hadduu alla idmo insha Allah tacaala. maadaama ay u baahan tahay xisaabta calculation waxaan aadi doonaa sabuuradda hadduu alla idmo insha Allah tacaala. arday kastoo soo diyaarso buuggaaga iyo qalinkaaga, balse waxaan rabaa inaan baraarujin yar ka hormariyo. marka hore si xisaab aa uga shaqeydo ama xisaab faham dheeri si aa uga qaadato waxay u baahan tahay practical badan, inaad lahaato buug raf ah oo guriga ku yaalo oo sanadadii hore ay isticmaashay qaybo ka bannaan, inaad dhowr mar tusaalaha ku celcelido. markaa waxaa gaari kartaa guusha aad rabto iyo hadafka u socoto oo ah maadadan xisaabta inaad ka gungaarto insha Allah tacaala. waafajinta Allah haday kula jirtana waa ka gungaari doontaa insha Allah. marka buuggaaga iyo qalinkaaga soo diyaarso. maadadii oo calculation-ka ahayd ee xisaabta ayaan isla aadi doonaa iyo sabuuradda ee la soco insha Allah tacaala. tusaalayaasha buugga ku qoran ayaa ku gudagali doonaa. isoo raac tusaalaheena koowaad
chapterka koowaad ee trigonometry-ga. Chapterka wuxuu quseeyaa sectionkiisa ugu horeeya ee loo yaqaano compound angle formula. xaglaha ama jidka xaglaha isa saaran jidka loo yaqaano ayuu quseeyaa, especially wuxuu quseeyaa qaybta loo yaqaano cos ama cosine qaybta loo yaqaano ayuu quseeyaa. adwaalid insha Allah taala waxa ku shaqeyn doonaa marka cos A plus B iyo cos A minus B yaa ku shaqeyn doonaa. cos marka la furfuraayo compound angle marka la joogo qaabka ugu wanaagsan ama ugu fudud ee la furfuro waxaa waaye cos double laba mar soo qaado cos calaamada dhexda ku jirto waa positive, inverse ka dhig negative, sin A iyo B si ay u kala horeeyaan u kala hormari B waxa la yiraahdo furfuritaankeeda waa intaa. cos A plus B waxaa la mid tahay marka cos A cos B minus sin A sin B. waxaa ku xidhi kartaa inaad dhahdo cos double inverse sin double. sidoo kale cos tan waxaa furfuray idan jidkii hadoo kale oo waxaa leedahay cos waa cos double calaamada negative kale inverse kale maxay noqonay positive, sin double sin A iyo B respectively si u kala horeeyaan B labadaas qaab iyo furfuri doonaa. hadday ku timaado A plus B saan furfurina, hadday ku timaado A minus B waxaan furfuri doonaa jidkan. waxay noo qoran marka saddex tusaale ugu horeeya waxaa waaye cos 15 degree. hore waxaan usoo baranay trigonometry laba qaab aa loo cabiraa, marna waxaa lagu cabiraa degree marna radian. degree waxaa dhahnay waxaa saaran calaamadan oo sumad u ah radianka mar walba waxaa ku jirto by cos 15 degree. qaabkan furfurayna fiiri marka cos 15 degree waxaa u furfuraynaa waxaa mar walba reference ka dhiganaynaa waxaa loo yaqaano special angles oo ahaa 30 degree 45 degree 60 degree iyo 90 degree. waxaa fiirinaynaa angalka ah haysano oo ah 15 xaglahan ma ka yar yahay mase uu ka weyn yahay. xaglahan ma ka yar yahay mase uu ka weyn yahay. 15 hadda way ka yar tahay Soomaa mid ugu yar 30 maadaama ay ka yar tahay waxaan raadinaynaa laba xagal oo haddii la kala jaro 15 noo keenayo. laba xagal oo haddii la kala jaro noo keenayo 15. labadan waa qaadan kartaa, labadan waa qaadan kartaa. waxaan dhahayna markaas 45 laga jaray 30 ama 60 laga jaray 45. cos 15 degree waxaa la mid tahay marka cos 15 degree waxaa qaadanayna 45 oo laga jaray 30 intaasaan qaadanay. 45 haddii 30 laga jaro ogow waxaa la mid tahay 15. hadda maxaa noo soo baxay marka cos 45 laga jaray 30 cos booskan 45 waxaa u qaadataa A minus booska 30 waxaa u qaadataa B. maxaa noo soo baxay marka cos A minus B. cos A minus B aa marka waa tanaa cos A minus B furfuritaankeedu siduu ahaa marka cos A minus B furfuritaankeedu wuxuu ahaa cos A cos B lagu daray sin A sin B soo maa. booskan oo cos A cos B booskeeda waxaa u qaadanayna inay tahay 45 degree laga jaray B ne 30 degree. noo furfur marka waxay noqonaysaa cos 45 degree cos 30 degree laga jaray ida laga jaray maxay noqonaysaa markaas lagu daray sin 45 degree sin 30 degree. intaas ay soo ma special angle marka la joogo ama waxa loo yaqaan trigonometric ratio marka la joogo cos 45 teebada soo baranayso ma qiimihiisa ku qornaa cos 45 ma qaalakeed waxay leeyahay radical 2/2 lagu dhuftay cos 30 ma qaalakeed radical 3/2 leeyahay lagu daray sin 45 ma qaalakeed radical 2/2 meesha kaliya ee sin iyo cos ay seegiin waa 45 marka la joogo lagu dhuftay sin 30 ma qaalakeed half way. meesha marka la joogo laba fraction haysanaa hooseeyis isku mid ah ama multiplication ah sarey ku dhufo hooseeyna ku dhufo radical 2 radical 3 ku dhufo waxa soo baxay radical 6
loo qaybshay 2 2 ku dhufo waa 4 lagu daray radical 2 1 ku dhufo waa radical 2 2 2 ku dhufo hooseeya 4 laba fraction hooseeya isku mid yahay ku dar meel u dhaxaysa maxaa la sameeyaa labada hooseeya mid ka soo qaado labada sareeyana balance radical 6 oo lagu daray radical 2 laba radical oo qiimaha gudaha ku jira ay kala duwan yihiin haddii la isku dari tago isuma gudbaan sidaa darteed solution wuxuu leeyahay bartaas radical 6 plus radical 2 oo loo qaybshay 4 intaas wuxuu leeyahay isla tusaalaha koowaad qaybtiisa b-da waxaa noo qoran cos iyadoo furfuran oo ah cos 87 cos 93 minus sin 87 sin 93 degree anoo qoran intaana soo qaadanayna waxaan fiirinaynaa iyo u eg tahay cos cos minus sin sin tan u egtahay cos for marka cos 87 degree cos 93 degree kan buu way tahay kan waxa uu ekeysay minus ku jiro tan minus ku jiro sama saas darteed isugu yihiin marka minus sin 87 sin 93 degree waxa fiirina marka booskan a yaa taagan 87 booska b yaa taagan 93 waxa leeyahay markaas sin gadaal u celi intaan oo 87 waxay ka timid cos sama waxay markaas cos a booskeeda inuu taagan 87 minus kan hadii gadaal loo celi maxuu isu bedela plus 90 degree wuxuu taagan tahay b cos 87 lagu daray 93 waxay isku darayna angaliska gudaha 87 isku dar maxaa soo baxay calculator-ka ay qaado 87 plus 93 waa 180 degree cos 180 qiimo ahaan meeqa laagtaa markaas scientific geli cos 180 degree geli waxaa soo baxaysa markaas waxay laagtahay qiimo ahaan negative 1 ama minus 1 ayay laagtahay b-da intaasay ku xalisan tahay waxay noo dhiman isla c waxaa noo qoran cos 5 by over 12 kan wuxuu ku cabiran yahay radian ahaan laba option aan noo furan isla radiankiisina ugu shaqeyno iyo inaan degree u bedelano haddii aad arday tahay qaabka kugu fudud ay u shaqeyn karto waxaa waaye inaad degree ahaan u bedelato waxaa samaysaa marka cos 5 booska by waxaa ku bedelataa 180 loo qaybiyey 12 marka 5 180 ku dhufo ee 12 u qaybi qiimaha ku soo baxay sheeg marka cos 5 waxaa ku dhufataa 180 kadibna waxaa u qaybisaa 12 qiimaha ku soo baxay ii sheeg marka waxaa ku soo baxay 75 degree 75 degree waxaa soo qaadanayaa markaas cos 75 degree noo soo qaad 75 soo qaad marka waxaa fiirinaysaa 30 45 iyo 60 kuwaan special angle ma haysama ma ka weyn tahay ma soo ka yar tahay hadaa waxa ku daray 90 kuma jirto marka saddexdan loo fiiriyaa oo reference looga dhigaa saddexdan ma ka weyn tahay 75 ma soo ka yar tahay way ka weyn tahay maadaama ay ka weyn tahay waxaan raadinaynaa laba kamid ah special angle-iska oo haddii la isku daro noo keenayo 75 waa 30 iyo 45 waxaan leenahay markaas cos 75 waxay la mid tahay 30 lagu daray 45 maxaa 45 hormari waaye ku dara la joogaa 30 soo hormari 45 soo hormari isku mid waaye hal laba ku dar waa 3 laba hal ku darna waa 3 isku mid waa marka intaan furfurayna marka cos 30 lagu daray 45 waxay la mid tahay hay costan ay macna tahay cos a plus b maxna hadid cos a oo 30 u taagan cos b oo 45 u taagan calaamadii balaskeed wuxuu bedelayna minus sin a oo u taagan 30 sin b oo u taagan 45 degree hay mid kasta qiimeeyo marka cos 30 meeqa la mid tahay waxaa la mid tahay radical 3/2 lagu dhuftay cos 45 meeqa waaye radical 2/2 laga dheeray sin 30 meeqa waaye half lagu dhuftay sin 45 meeqa waaye
radical 2 over 2 walaalo waxaan sheegay radical 3 over 2 iyo radical 2 over 2 waa table-kii hore u soo baranay meeshaas ka soo qaatay ogow ay laba fraction ay sanad isku dhufsan sarreey ku dhufo hooseen ku dhufo radical 3 radical 2 ku dhufo xasab waxa radical 6 labada hoose isku dhufo 2 ku dhufo waa 4 laga jaray hal waxa ku dhufta radical 2 waa radical 2 laba ku dhufo waa 4 laba fraction oo hoose isku mid yahay waxa sameeyaa labada hoose hal ka qaado labada sareeyna calaamad u dhaxayso lama calaamad ku dartaa isku dar hada ka jirtaan kala jar ay ka radical 6 laga jaray radical 2 radical 6 radical 2 waa laba radical oo kala duwan marnaba isma gudbayaan intaas oo ku yahay tusaaleyn koobaad ee jabtarka koobaad ee trigonometriga qaybtiisa loo yaqaano compound angle formula cos la xiriiray ama cosine la xiriiray aad ma